wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay wajigii labaad ee ololaha tallaalka xanuunka dabaysha kaasi oo socon doona muddo 5 maalmood. agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo madax ka socotay hay'adaha wada shaqaynta ay leeyihiin oo kulan ku yeeshay xarunta wasaaraddaasi waxa ay sheegeen in tallaalkani loo sameyn doono carruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano kuwaasi tiradoodu ku dhowdahay 1 milyan oo carruur ah. waxaana tallaalkani ka warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland Dr. Ahmed Maxamuud Jaamac. qaybta labaad ee xanuunka dabaysha nooca tallaalka aynu bixinayna wuxuu noqon doonaa haddii la yiraahdo tallaalka dabaysha taariikhdu bilaabmayana waa maanta oo ah 24 bishii 8 2025 ilaa iyo 18 bishii 8 2025 daada carruurta inta laali doono haddii la yiraahdo waxa weeye daada carruurta 5 sano daadoodu tahay iyo wixii ka yar goobaha lagu tallaalaya dhammaan waa gobolada Somaliland hadday noqoto gobol hadday noqoto degmo iyo hadday noqoto dacbiyad ama tuulooyin dadka ugu tala galay in tallaalkan ka faa'iideystaan waa ilaa dad 8,990 kun oo carruur ay daadu u dhaxayso tiradoodu kooxaha tallaalka bixinaya tallaalkan ka shaqeynayo waxay isugu jiraan kooxo kala duwan 2,359 team oo dalka oo dhan baa ka howlgelaya teamkii uu ka kooban yahay qaybo kala duwan ilaa 4-5 qof. geesta kalena agaasimaha waaxda tallaalka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo madaxdii ka socotay hay'adaha ay wada shaqaynta ay leeyihiin oo halkaasi ka hadlay waxa ay ka warameen tallaalkan iyo muhiimadda uu leeyahay carruurta. waalid iyadoo aad xaruntii ka soo tallaashay iyadoo laga yaabo inaad ilmahaagii wadamada jaarka ama Ethiopia ama Djibouti ka soo tallaashay ama adigoo bishii 7 campaignkii hore ama ololihii horeba ka soo tallaalay haddana haddii guriga lagu yimaado waad siinaysaa tallaalka sababtoo ah tallaalkani waa xoojin difaaciina wuxuu u baahan yahay mar walba in la xoojiyo maadaama weli gobolka aynu ku noolahay geeska Afrika uu fayraskii ka jiro booliyada Kenya maadaama uu jiro isku socodkiina ballaaran yahay waxa jiray khatar mar walba carruurteeni inay halis ugu jirto inay ku dhaco xanuunku marka sidaas loogu celcelinayaa in immunity-ga carruurta ama difaaca carruurtu ay kor loogu qaado marka waxaan idinka codsanaynaa haddii aad soo siisay imikana u diidi maayo tallaalku waxba yeeli maayo waana tallaal la hubiyey iyo habraaci wasaaradda horumarinta caafimaadka nidaamkii u yaalayna way raacaysaa marka inkasta oo aan kaysas cusub oo cudurka dabaysha laga helin Somaliland laakiin haddana waxa lagu jiraa xilli la doonayo in adduunka laga cirib tiro waxaana wadamada dariska laga helay kaysas dabaysha sidaynu xuduudaheenu iskugu furan yahay ee dadkeenu iskugu socdana waynu la wada soconnaa hadday noqoto Ethiopia laga helay Djibouti iyo Soomaaliyaba habeenaya maalinba dadku waa isdhex qaadayaan marka inaynu mar walba ku celcelino oo la xoojiyo difaaca carruurteena ayaa muhiim ah. Yaxya Muuse Ibrahim, Nairobi, TV qaranka Somaliland, Hargeysa.